الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تون أكسن أصحاب تيد قيمة بدن له channel كعطاونا سنوعيق official مقاعي قنوع عبد الشيديقة كسور دواذا مقال أصوب مقال كان وحنو reaction كقبل حندونا هدالا هذا فيديو أد وعقيبة بدن وعن نساقنا سيدو كله إذا لو ذاك دونو أنا نخبو إن شاء الله مركز دعوتان يعني نسلا دعوتنا inuu isbedel insha Allah ina dareensi doono waa muuqaal runtii aniga iga yaabiyay idinkana aan hubo inaad yaabi doontaan isla markaana fariinta uu sido aad sidiisa u qaadan doontaan insha Allah bidilaahi kariim inoo bilaabo markaasi muuqaalka wuxuu ku bilaabanayaa nin dhalinyaro iyo habar ama qof weyn oo daa iyo sidoo kale nin garan casridan oo halkaas fadhiya sidaad arkaysan bal sidee wax u dhacaan iyo waxa meesha ka dhici doona haynugu socoto Come on, it's not even that heavy. gabadhan weyn waxay is leedahay isku dayaysaa inay qaato kursiga isaguna wuu daawanaya waxa uu leeyahay kursiga ma cusla waad qaadi kartaa isku day inaad qaado ayuu ku leeyahay wiilka dhalinyarta xagga sii jeedana waa la socda waxa meesha ka dhacaya bal aynu wada fiirsano Okay, can I get you both started with a drink? We'll both have waters. Of course. And do you both need a little more time to look over the menu? Yes, I am. kama dambaystii waa ay fadhiisatay waxayna awooday inay fadhiisto meeshu waa hudheel sidaad arkaysaan waa baar wax laga dalbado cunto iyo cabitaan inay cunaan bay u yimaadeen oo ay usoo fadhiisteen sida ninka dhalinyarta ee halka kasii jeedaaba aad arkaysaan inuu wax cunayo hadda waxa soo dul istaagaysa markaa waiterkii ama inantii dalabka ka qaadaysay gabadha waxay weydiisay oo ku tiri maxaa idin keenaa deetana wuxuu ku yiri biyo ayaan u baahanay inaad noo keento ama biyo aan ku sii sugno cuntada weyn kadibna waxay ku tiri miyaad akhrinaysaan yani menu-ga oo ah liiskan cuntadu warqad ku qoran tahay oo waqti baan isiyaa kadibna ninka waa xanaaqay bal wuxuu dhaahdaa aynu eegno No, we're ready to order. I'll have the chicken sandwich. And how about you, ma'am? I just need a little more time. More time? isagu wuxuu yiri waxaan u baahanahay yani sandwich digaag la soo dhaxmariyay iyaduna waxay ku tiri maxaan ku keenaa deetana gabadhii weynid waxay tiri waqti yar ayaan u baahanahay oo aan ku akhriyo liiska cuntada inaad siiso wuu ku soo boodayaa muxuu leeyahay I'm starving. It's fine, really. I can just come back when you're both ready to. No, pull my order in for now. I don't have time to wait for her to decide what she wants to eat. Of course. I'll get right on it, and I'll be back with both of your waters. waxa uu yiri aniga dalabkayga keen gaajo xun bay haysaa macluul oo dhow mana sugi karayn ka fikiraysa warqadan ku mashquulsan tahay akhrisanayso aniga dalabkayga marka ay keen ma sugi karay deetana waxay ku tiri bal way ka dhaqaaqday marka intii waiterka ahayd bal ayna eegno waxa dhacay intaa wixii ka dambeeya I don't mean to interrupt, but the spaghetti here is really good. My mom used to order it all the time. Thank you. But no one asked you for your opinion. Honey. ninkii yaraa waa soo kala dhex galay wuxuu ku yiri inaadin rabsho ama dib idin keeno ma doonayo laakiin baastada halkan aad bay u macaan tahay hooyadayna way dalban jirtay markay hudheelkan kala timaado cuntadeeda ay jeclayd inay ka cunto waxay ahayd pasta mahadsantay buu ku yiri laakiin cid wax ku weydiisay ma jirtaba And here you are. Okay, one for you, one for you. biyaha ay dalbadeen ayaa loo keenay markaas oo loo shubaya I'll be back in a moment. There you go again! sidaad arkaysaan gabadhi way gargariirtay qof weyn oo daa weeyaan deetana biyihii ay dusha iskaga shubtay isagana waa uu ka xumaanayaa kolay bal waxa dhacayno aragno Always making a mess. Oh, honey, I'm so sorry. I didn't mean to. Sorry. Oh, It's not gonna clean up the mess that you just made. Go to the bathroom and clean yourself up.
waxay ku tiri waan ka xumahay inaan sidan oo dhan wax u qaldo maan jeclaysan ama maan doonaynin isaguna wuxuu ku yidhi sorry ama inaad tiraa waan ka xumahay kaama gudayso oo ma kelin garanayso ama ma nadiifinayso waxaanaad samaysay orodoo tag baadka ama xamaamka isu soo hagaaji bal waxaan aad isku daadisay orodoo iska soo hagaaji allahu akbar wiil yar oo dhalinyara oo sidaa qof weyn ula hadlaya tolo qofkan uu sidan oo dhan ula hadlaya yuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa bal inoo wada fideoga It's not that bad. I'll help clean that up. Listen, buddy, this isn't your mess. Just go back to your table. Look, I just want you to treat your mom better. Really? ninkii dhalinyartaaba u soo kacay deetana wuxuu yidhi aniga ayaa nadiifinaya meeshan deetana wuxuu ku yidhi waxani arrimahaaga maaha orodoo kursigaaga iskaga noqo waxaan inaad nadiifso looguma talagelin qoftan uu sidan oo dhan ula hadlayba hooyadii bay ahayd ninkan dhalinyarta muxuu ku leeyahay maaha inaad hooyadaa sidan oo dhan ula hadasho waana laga qurux badan yahay inaad hooyada sidan oo dhan u canaanato. And why is that? You know what? Why don't you worry about spending time with your own mom? deetana wuxuu ku yidhi maxaa kaa gala adiga mad orodo hooyada adigu sida wanaagsaneed sheegaysa ula hadal deetana ninkan dhalinyarta wuxuu yidhi waan ula hadli lahaa laakiin waa haddii aan kari lahaa haddii aan kari lahaa muxuu uga jeedaa aynagu socoto. Well, I wish I could. You see, I was just like you. One night my mom wanted to have dinner, and I didn't want to go. She said she had something very important to tell me. I remember at the restaurant she was struggling to pull out her chair. I sat there and rolled my eyes, not even caring to help her. And then she took forever to order her food. I got so impatient and just ordered without her. And then she made this huge mess. And I got so upset and yelled at her. And then I made her go clean herself up. And that was the last time I saw my mom. muxuu ku yidhi ninkii dhalinyarta markaas waan ula hadli lahaa ama waan caawin lahaa hooyadeyda laakiin waa haddii aan kari lahaa waanan jeclaan lahaa weliba sidaasoo kale ayaanu hudhaal wada nimi sidaasoo kale ayaanan kursiga ugu qaadin oo aanan u ogolaanin inaan kursiga u qaado oo aan u daawanayay iyada oo la dhib mudanaysa inay kursiga soo qaadato sababtoo ah qof inay ahayd sidaasoo kale ayay waqti ku qaadatay inay liiska cuntada akhrido oo ay doorato cuntada ay rabto ama ay dalbato sidaasoo kale ayay biyaha ula gargariirtay isla markaana ay iskugu shubtay aniguna waan u dhibsanayay oo hadal xun oo adag ayaa waxaan ku yidhi orado waxaanad samaysay iyo biyahanad isku daadisay iska soo masax oo baadka tagoo dharka iska soo bedel waxayna ahayd markii iigu dambeysay ayaan arko. It turned out she wanted to have dinner to tell me she had cancer. So you see, I'd do anything to help her with her chair again or to help her clean up her mess. So don't take your mom for granted. Well, thank you so much for sharing. And I'm so sorry for what I said earlier. It's okay. I know you're gonna do the right thing. Here she comes. waalidkaaga adeeco hooyadaada ka ducayso hooyadaada u dhibirsanow hooyadaada u dabaac hooyadaadana u jiljilaa ayaa uu ku leeyahay markaasi ninkan dareenkiisi waa la bedelay maskaxdiisi waa la bedelay waxbaa la tusay waxaa la tusay muhiimadda uu waalidku leeyahay iyo in waalidka lagu adadkaanini inaanay wanaagsanayn islaantii way soo noqotay kadibna maxaa uu samayn doonaa balaynu eegno. I'm so sorry, son. I never meant to embarrass you. Ma, I'm the one that should be sorry. Here, let me get the chair for you. Alright, so let's take a look at this menu, yeah? I think
think I'll have this one. Yeah? sidaynu aragno kursigii markan waa uu ka qaaday oo waa uu qaaday waxaan u ogolaaday inay fadhiisato liiskii cuntadana waa uu soo qaaday oo waxa uu ogolaaday inay akhrisato si yaro degan weliba uu la akhrinayaa iyada oo dookhii ay rabtay oo u doorayo oo waqti siinayo waxaad ka fikirtaa ood bal eegtaa oo dib iskugu noqotaa waa sidee xidhiidhka idinka dhexeeya adiga iyo hooyadaada waa sidee xidhiidhka idinka dhexeeya adiga iyo aabbaha ma xidhiidhisaa ma jeceshahay ma ula dhaqantaa si wanaagsan oo dabacsanaan kalgacal muxibo iyo u dhibirsanaan iyo adeecida ay ku jirto ma timaadaa xilliga ay rabaan inaad guriga timaado ma tagtaa meesha ay raali ka yihiin ma tahay qofka ay doonayaan ay mustaqbalka u dhisayaan ee u diyaarinayaan sida ay kaa rabaan ma tahay hawsha guriga qayb ma ka tahay wax ma ka qaadataa ma tahay qof muhiima oo markuu guriga ka maqan yahay la tago markuu joogana la tirsado ma u dabacsan tahay ma u dhibirsan tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa waalidiinteenna haddii ay nool yihiin in uu inoo caafiyo caafimaadna uu inoogu saamaxo oo inoogu ogolaado sidii ay inoo soo koriyeen inoo soo barbaariyeen waqtiga inoo soo geliyeenna uu uga abaalmariyo waxay inoo ahaayeen iyagaa cuntada inoo karinayay iyaga ayaa dharka inoo meedhayay iyaga ayaana soo korinayay inagoon waxba cunin ayay dhibsanayeen inay iyagu wax cunaan ilaahay waalidiinteenna ha u dambi dhaafo haddii ay dhinteenna ha u naxariisto halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa videogan